Asalaamu calaykum anigu Yumaan soo dhawaada muuqaalkana u hadli doono maanta waxay 5 magaalo oo ugu khatarta badan leh dunidan aan ku noolnahay maadaama ay maalmahan wadamadii horumareen videogan intaanan galin channelkan hala gaarsiiyo 10,000 subscribe laaganeyga mahayo hal sii share garaayo waxaan ku bilaabi doonaa magaalada koowaad ee aan kusoo qaadan doono magaalooyinka aan maanta ka hadlayno waa magaalada Kabul ee wadanka Afghanistan barigiisa ku taalo waana magaalada madaxda wadanka Afghanistan. Magaaladan ayaa ahaan jirtay beri hore magaalo aad iyo aad loogu soo dalxiisi jiray oo aad iyo aad u fiican, balse maanta ay isku bedeshay mugdi maxaa yeelay Ruushka ayaa kusoo duulay xilli dhow oo sanadihii dhawaa ahaa. Ruushka ayaana dagaalo iyo waxyaabo badan ka sameeyay magaalada Kabul ee wadanka Afghanistan, balse wadanka Mareykanka ayaa ku eedeeyay kooxda ka dagaalanta Afghanistan gaar ahaan Kabul ee Taliban inay ka dambeeyeen 11 Sebtembar 2003 weerarkii ka dhacay New York ee wadanka Mareykanka iyo qaraxyadii ka dhacay. Mareykanka ayaa taasi sheegay inuu ku tilmaamay wadan argagixisa inay tahay wadanka Afghanistan ayna tahay magaalada ugu halista badan leh maxaa yeelay waan wada aragnaa magaaladaas ayaa ka dhaca dil, kufsi, dhac, kooxaha jir magaalo aad iyo aad u dhibaato badan. Website ayaa kasoo xiganay waana magaalada koowaad ee adduunka ugu cabsida badan leh sida hadda la joogo. Magaalada labaad ayaa ah magaalada Acapulco ee wadanka Mexico. Magaaladaas ayaa leh xeeb aad iyo aad u weyn oo dadka soo jiidanayso. Magaalada Acapulco ee wadanka Mexico ayaa ah magaalo aad iyo aad u qurux badneed waqtiyadii lasoo dhaafay, balse hadda isku bedeshay mugdi maxaa yeelay magaaladan ayaa hoy u ah daroogada si noocay rabta ha ahaato, khamriga, wax walbo. Haddana waxa ay ku caan baxday magaalada Acapulco ee wadanka Mexico dilalka iyo dhaca iyo kufsiga iyo afduubka. Magaaladan ayaa magaalo aad iyo aad loogu soo dalxiisa ah, balse qolyaha ka dagaalama oo tuugada ah ayaa doonaya inay dadka dalxiisayaasha dilaan sababtoo ah magaaladan ayaa waxyaabo badan oo munaafacaad leh, xeebab, malaay iyo waxyaabo badan ayaa laga dabtaa, balse magaalada Acapulco ayaa noqotay hoyga daroogada. Taasi ayay ku noqotay inay soo gasho liiska magaalooyinka ugu xun adduunyadan aan joogno, waana lambarka 2 Acapulco ee wadanka Mexico. Magaalada saddexaad waa magaalada Rio de Janeiro ee wadanka Brazil. Magaaladan ayaa ah magaalo aad iyo aad loogu soo dalxiiso ee dadku u soo dalxiisaan. Waxaan ognahay 2014 in lagu qabtay koobka ciyaaraha adduunyada ee kubadda cagta oo ay kasoo qayb galeen wadamo aad iyo aad u badan. Dadkaasi oo wadamadooda usoo dalxiisay magaalada Rio de Janeiro iyo magaalooyinka kale ee wadanka Brazil. Magaaladan ayaa lagu sheegaa magaalada 6aad ee ugu weyn uguna baaxadda weyn qaaradda Ameerika oo ah qaarad aad iyo aad u weyn, balse hadda ayay isku bedeshay magaalo dil iyo kufsi iyo dhac iyo walxa sharci darro in la kala iibsado iyo qolxaha gaangiistarada ee degan magaalada Rio de Janeiro ayaa isku daya inay weeraraan dhismaha ay degan yihiin dowladda wadanka Brazil, balse laakiin taasi waa ay mararka qaar u suurta gashaa. Mararka qaarna waxa ay ataagaan dadka dalxiisayaasha ee usoo dalxiisa wadanka Brazil keymaha Amazon oo dad badan soo dalxiisaan si ay u daawadaan duurjoogta wadanka Brazil. Garoonkan ayaa magaalada Rio de Janeiro ayaa ku caan baxday garoonka caanka ah ee Maracanã Stadium oo looga qaaday tartanka kubadda cagta ciyaaraha adduunyada wadanka Argentina xilligaas ay ku guuleysatay xulka wadanka Germany. Lambarka 4 waa magaalada San Pedro Sula oo ku taala wadanka Honduras.
cirifka waqooyi galbeed ee wadanka Honduras ayay ku taallaa. Magaalada San Pedro Sula oo magaalo madax u ah wadanka Honduras, magaaladan ayaa ahaan jirtay magaalo aad iyo aad u qurux badan oo loo soo dalxiiso. Magaaladan ayaa leh dhismooyin aad iyo aad u weyn. Magaaladan waxa ay ku caan baxday dhismaha iyo ka ganacsiga beeraha iyo waxyaabo kale ayay kusoo caan baxday, balse magaaladan dhibaatada haysata ayaa lagu sheegay inay tahay kiisaska ugu badan adduunka in laga helay magaaladan oo dambiyada ah 3 sano oo ugu dambeeyay. Taasina waxa ay sheegeen shabakadaha adduunka inay magaalada San Pedro Sula aynan lahayn boolis aad iyo aad u badan. Booliska joogana ma haystaan ayaa lagu eedeeyaa hub aad iyo aad u ballaaran ay iskaga celi karaan dadka. Xitaa waxaa la sheegay magaalada San Pedro Sula inay dadka degan ay iska boobaan guryaha iyo dukaamada iyo walxaha kale sida gaariyada. Magaaladan ayaa kusii caan baxday in lagu kala iibiyo daroogooyinka sharci darrada iyo hubka sharci darrada. Magaaladan ayaa taasi sabab u noqotay inay kasoo mid noqoto liiska magaalooyinka adduunka xilligan la joogo ugu khatarta badan leh. Magaalada San Pedro Sula oo dhacda cirifka waqooyi galbeed ee wadanka Honduras. Halka magaalada shanaad ay tahay magaalada Guadalajara oo ku taalla wadanka Mexico. Mexico ayaa noqday wadanka kaliya ee ku leh 2 magaalooyinka adduunka ugu khatarta badan leh, taasi oo ah wadanka Mexico inuu yahay wadan aad iyo aad u halis badan. Magaalada Guadalajara ayaa la mid ah magaalada Acapulco oo iyadana ku taalla Mexico oo horey uga hadalnay. Guadalajara ayaa ku caan baxay daroogada sida waxyaabaha khamriga iyo waxyaabaha kala duwan, hubabka sharci darrada iyo waxyaabaha kale. Guadalajara ayaa booliiska iyo dowladda ayaa isku darsaday ra'yiyo iyo howlgallo inay ka fuliyaan magaalada Guadalajara, balse taasi waxa ay dhiirigelin u noqotay dadka usoo dalxiisa magaalada Guadalajara ama degan ama ka ganacsada. Dadkaasi oo mararka qaar ku nabad gala magaalada Guadalajara. Magaaladan ayaa sida ah magaalada Acapulco ee wadanka Afghanistan sida hubka sharci darrada iyo waxyaabaha daroogiska ah. Magaaladan ayaa ku caan baxday habka loo kalluumeysto. Magaaladan ayaa degan dad isku jira adduunyada. Magaaladan waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu cabsida badan leh adduunyadan aan ku noolnahay. Taasina waxa ay tahay sababta loogu soo daray liiska magaalooyinka ugu halista badan leh adduunkan aan ku noolnahay. Magaalada Guadalajara oo wadanka Mexico ku taalo. Intaa waxaa kusoo dhammaaday fiidiyoogeenii aan uga hadlaynay magaalooyinka ugu halista badan leh dunida 2020 oo ahaayeen 5 magaalo. Waxaa noo badan fiidiyowga dambe insha Allahu tacaala. Channelkan hala subscribe gareeyo, hana like gareeyo, hala share gareeyo, wax walba laga helaa.